waxaan isweydiinaynaa maxaa lagu helaa laylatul qadriga maxaa lagu helaa welinimadii xalay aynu ka soo hadlayay maxaa lagu helaa ilaahay in loo dhawaado maxaa lagu helaa jannada intaasiba soo wax qaaliya ma waxa lagu helay in yar ka taabanayna marka waxa dahabsana wa qiyamul layl wama adraaka ma qiyamul layl habeenkii cibaadada la isu taago xagga hore iyo xagga dambe iyo dhaxda mid kasta ahaaba haba qodob baynu ka taaban insha Allah fadliga uu leeyahay wax yar iyo al-asbaab al-mu'inatu ala qiyam al-layl iyo waxyaabaha inaga caawin kara inaynu cibaadadan gudano fadliga cibaadadaasi ay leedahay quraanka ilaahay uu ku sheegayo wuxuu warbixin inooga soo gudbinayaa dadkii oo jannadii galay oo faala laga bixinayo maxay jannada ku heleen talo ilaahay baa wuxuu kaanu qaliilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfiruun habeenkiiba in badan cibaado u taagnaan jireen waqtiga suxuurtana ilaahay bay dambi dhaaf weydiisan jireen oo arrimaha jannada lagu helo iyo wax bixinta ku sii nabiyullaahi muxamed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo tilmaamayaa qiyaamul layl waxyaabaha lagu helo wuxuu calaykum biqiyaamil layl wa xadiid saxiix ku dadaala habeenkii ina cibaadada isu taagtaan fa innahu da'bu saalihiina qablak awliyadii iyo dadkii wanaagsanaa idinka horreeyay waa dhaqankoodii da'bi waa wax dhaqan u ahaa weey wali ilaahay oo kasta ilaahay buu caabudi jiray habeenkii wali baa caabuday wa qurbatun ilaa rabbikum rabbigiina wuu idiin dhaweynay wax kasta oo ilaahay inoo dhaweynay ilays baynu ku raadinay wa manhaatun 'anil ith dambigana talaal buu kaaga noqonaya uu ka durkinaya qof habeenkii ilaahay isu taagaa subaxdii ciyaar dambi uma galayo wa takfiru lisayi'at dambigii ka dhacayna ilaahay uu kaaga reebaya maxaa ka faa'iido badan kii aad ku dhici lahaydna uu ka joojiyo kii ka dhacayna waa lagaaga dhaafay malakul jibriil alayhi salaam wuxuu yimi rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida xadiid saxiixa talooyin buu xambaarinayaa si ummadiisa ugu sii gudbiyo nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay in ish ma shiit fa innaka mayit inta doonto noolawo waa dhimanun inta doonto waqtiga doonto ha gaadha laakiin geeri u baa ku sii xigaysa wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariq cidda doontana jeclawo jacaylka waxba lagu tixgelin maayo maalin u baad ka dhaqaaji oo ka dhiman doonta wa'mal ma shi'ta fa anta majziyun bih wax kasta oo aad samayso amalana ha ilaawi uu qorayo waa lagu abaal marin wa'lam anna sharafa al-mu'min qiyamahu bil-layl waxaad qiyaamuhu bil-layl waxaad ogaataa qofka mu'minka sharafkiisu mu'minka sharaftiisa iyo gobonimadiisa iyo xaragadiisa waa inuu habeenkii ilaahay sor taago waqtiga dadku seexdo wa izzahu istighnaahu 'an an-nas asiisnimadiisa iyo gobonimadiisuna waxay ku jirtaa inuu bani aadamka ka maarmo ilaahayna u baaho bani aadamkana ka maarmo waa talooyin cajiib marka sharafta mu'minka ayaa inaanu habeenkii ka qadin cibaadada ramadaan iyo غayru ramadaan waqtiga ramadaan ahaynba حديث كلام صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حوله أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل صلاة أولاً إلى هاي وجه علي مركب فرق لقت هذين كله تكذو أحب الصلاة إلى الله صلاة داود حديث كي كلام صحيحة صلاة أولاً إلى هاي وجه علي تين نبي داود هذين كي بيلاهي سرتاجت سبحانه وتعالى حديث كلا أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر وقت يقول هاي أطونك وقول له هاي وهبينك قيبت الضمبر بل أنت الناس اسكتب العضاء عدة يسوق يعني إنه فلسي كفا إذا استوى أيوه وإنك الله ينوافتي أنا صو دقدقو وحاسو وناقيا وحكسي بدن بابا أينو أركينا وقرآنك أنت فرلك هذا الشبه أنت سنها بكسي بدن به أنا قدبنا محائق عاوين كراه
والله بس سببات أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. سبب موقنية يقار قرصون هو موقنية وحكم إذا تقليل المباحات وحيابها مباح شرعي وكو حلالي هل يغلقناها بتصنين اسكيرين وحول بو ولا وكو كما هو ويكون مدح مراني يكون مدح مرين وحيابها مباحات محاكم إذا شقده qofka maalintii shaqo aad u adag qabta waa iska adag habeenkii inuu kaco marka hadaan duruuf adag ku hayno ikhtiyaar leedahay shaqada kala yaree si aad chance iyo fursad habeenkii ugu hesho oo daalku kugu badan waxa kamid ah cunada kathratu al-akl iska yara cunada badan adigoo gaajada ka cabsanaya rabadaanta aad ha u liqliqina furka cashada suxuurta aalta baasha gaajaduna kala nasana horan waxba ku yeeli mees 24 saacadood hadaad hal mar wax baltijaadi hadaad imika afur ku dheregto way kugu filanta waxba noqon maysidba ilaahay baa ku barakeynaya hadaad imika cashada dheregto maxaad ka cibaadee la dhiigi baa maskaxdii ka imanaya calooshii baa loo gurmanaya waa adiga kala dhacay waxa sidoo kale ah oo iyadana la yareynaya hurdada dadkii saalixiinta ah kuwii wax qori jiray oo fiirso hurdadooda way yaray naga waxaan qoladan biology ku oranaya qofku hadduu konton gaaro ama 18 ka yar yahay 8 saacadood buu baahay inuu seexdo war 8na lama seexan jirin afar iyo 3 baa la seexan jiray waxna lama noqon jirin dadku dhinaca kale ayay ka cawilnaayeen oo ruuxdooda qawi yahay marka inaad hurdada yaraysaano way ka caawinaysaa waa mubaahaadki waxyaabaha ka caawinaya waxa kamid ah inaad qayluula la timaado maalintii yara seexato way ku caawinaysaa habeenkii inaad ka cado waxyaabaha ka caawinaya nabiguna faray waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam inaad hore isaga seexato hadda waxay ka marxaati kacayaan qolada caafimaadka ama nolosha bani aadam ka warrama 12 saacadood habeenkii qofka waxa ugu muhiimsan 4 saacadood dhaxbayda 10 laga bilaabo ilaa 2 10 ilaa 2 أفرتها ساعة وعجيب هذا عشاء جاي نروح وكوتشوك سنة وقت الفضيليس طبعا كوتشوك سنة صلاة الليل كنا قارمي بلاد ما يسي لا بضع أفرتها هذا الشباب إسكا يا قيلورة دي ويكوكو فلان ساعات قيلورة دي يا أفرتها هذا وركاسوا عليه لا بضع الريموتنا ويكا عاونية وحكا عاونية إن أقوم أولا هاي العلم بشرف هذا القيام دينتم حيكتنا ضحكتها قام inta aynu imika sheegnay daliil qofka aqoon u leh yaa waxa laga macaashay qofkan waxba ka garanay de isku dhadharo maaha waxyaaba ka caawinaya waxa kamid ah inaad dadkii saalixiinta ahaa iyo salafkii taariikhdooda akhrido bas sidii habeenkii u cibaadeysan jireen ilaahay ula xiriir jireen satara ajaa'ib wax badan oo la yaabad arki qaar intay aroosteen isbahaleeli waayaad soo arki taariikhdooda oo xaaska ay leedahay barorta aan tukanno isna uu la wadayo waagi sidii ku bareeyo هذواني يوري أروسا وعيارهن إنه وضبيران لأنقار كلا عجائب بدن بدركيس أسباب تباطن كأها حق قلبك وحكم إذا إن المعصية ده يسكديش عبادة ده وكعرف وقفك عاصي النقضاء واتسنوبيس صنبك وقود عيس مركا قفك مركو السنوبيس دانا عناد وقود رمين هديئة معصية كود عدنا عبادة ده كود رمين ميس sidoo kale qalbiga fayoobaantiisa in cibaadadaadu u badantay waxa ka muhiimsan baa in qalbigaagu caafimaad qabo oo naxl iyo nacaybsiyo nashushada muslimka iska dayso oo waxa la inagu dhaamiyay social media aba loo helay ummadda muslimka qalbiga ka sii daa ninbuu nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta abu faaleeyo wuxuu leeyahay in ahlu jannah ayaa imika inoo soo galaya uu soo galo waa hebel haddana berri tuurin in ahlu jannah baa soo galaya waaba ninkii haddana maalintii saddexaad buu in ahlu jannah baa soo galaya waa ninkii cabdilaahi ibn cumar baa daba dhigto salaadiisii habeenkii uu fiirsaday mise waaba yar tahayba cabdilaahi wuxuu leeyahay anaa ka salaad badan ba markuu mikrofon ku dhaweeyo waraystayna maxay warkiisii noqday qalbigana cid halkan aanan laab ugu hay reer hebeliye ila hebeliye waxa midna jannadayda iyo naartaydu ba ka fikraa dadka kale waa kala nasamay marka qalbiga ii fayow halkaas weey halka aad ka faa'iiday ee dadka inta hesha ay yar waxa kamida asbaabta baatinka ah jacaylka ilaahay inuu kugu weeyay subhanahu wa ta'ala